moogtahay in birta aad maalin kasta aragto aysan asal ahaan ka iman dhulka? haa, waa run. qur'aanka kariimku ayaa arrintaa muu tilmaamay. saynisku maanta ayuu xaqiijiyey. su-aashu waa sidee ayuu birtu ku timid dhulka? qaybta koowaad qur'aanku muxuu ka yidhi, muxuu ku tilmaamay? allah wuxuu ku yidhi qur'aanka suuradda alxadiid aayadda 25aad, aayaddanoo ah run ahaantii aayadda ka yaabisay culummada sayniska. waxaan soo dejinnay birta. ereyga ugu muhiimsani waa waxaan soo dejinnay, anzalnaa. taasi waxay tilmaamaysaa in birta laga keenay dhulka meel kale, maaha oo inaad run ahaantii ka dhalatay gudaha dhulka oo keliya. subxaan allah, kumanaan sano ka hor xaqiiqadan lama ogeyn. haddaba qodobka labaad, saynisku qaabku u sharaxay. maanta cilmiga loo yaqaano astrofysics ayaa sharxaya birtu waxay ku samaysantay gudaha xiddigaha waaweyn. markaa kadib xiddigahaasi ay qarxado supernova, birta run ahaantii waxay ku faaftaa hawada. kadibna meteoritka dhagaxyada cirka ka yimaada ayaa birta keena dhulka. birtu dhulka ku jirta waa hadid ka timiday cirka. qaybta saddexaad, qur'aankii saynisku maxay isku raacsan yihiin? qur'aanku wuxuu yidhi waxaan soo dejinnay birta. saynisku wuxuu leeyahay birta waxay ka timiday xiddigo qarxay. labadoodu waxay run ahaantii isku raacsan yihiin hal arrin oo xaqiiqo ah. birtu waxaa laga keenay meel ka baxsan dunida. taasi waxay muujinaysaa mucjisada cilmiyeedka ee ka dhex muuqata qur'aanka. gunaanadkii mawduuciina maanta, markaad xigtay aragto birta, xusuuso waa wax ka yimid cirka. waa calaamad awood alleh muujinaysa. qur'aanku maha oo keliya kitaab diini ah ee waa kitaab ku tusinaya xaqiiqooyinka dunida iyo cirka. haddii aad ka hesay xaqiiqadan, like saar, la wadaag qof aad jeceshahay.